بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب كسر دوادا سيدا عادة نوهات وعاد نوغو برتين موقال كلا أو كسابسن حساب فصل كسديدات. موقال كان موقال كوريي waxaan kaga jawaabeynay ama jawaab aan ku bixinaynay cutubka labaad oo ahaa jibaar waliba leeligiisa koobaad oo ku qornaa bogga 19aad ee bogga xisaabta. meesha ka sii wadeena marka muuqaalkii noogu dambeeyay waxa ku soo jawaabnay ama aan ku soo furfurnay laba su'aal oo kamid ah leeliskaas koowaad. su'aasha saddexaad ayaan muuqaalkan ugu talagalnay in aan ku falanqeyno. su'aasha saddexaad waxay leedahay marka utibaax tirooyinka soo socda taranta jibaarada isru mutaxan. taranta jibaaro ama jibaarada isru mutaxan utibaax. isirna maxaa la dhahaa? waa numberkan meesha ka imaaday ama numberada qaybsami kara inaad sheegtid. sidoo kale mutaxanna waxaa laga wadaa numberka ay u qaybsami karto hal in numberka nafsad ahaantiisa. muuqaalo badan kaga soo hadalnay oo aan yani bartan aan soo gelinay. su'aasha ugu horeysa marka waa 512. su'aasha ku xigta waa 343. su'aasha ku xigta waa 729. tan ku xigta waa 3125. midda ku xigta waa 80. marka dhammaan su'aalahaas hadda waxay u qoran yihiin tirooyin ahaan. waxaa loo qoraa jibaar ahaan, jibaarkaas oo isku taransan ama isku dhufsan isla markaasna isir mutaxan ah ama isiradiisa ay yihiin tiro mutaxan. tiro mutaxanna waa soo sheegay waa tiro u qaybsami karta hal iyo numberka nafsad ahaantiisa. waxaa ka mid ah 2 iyo 3 iyo 5 iyo 7 iyo 11 iyo 13 iyo 17 kuwaas ka mid ah ilaa wixii la siimid ah. haddii marka aan ka jawaabno mid aan ugu jawaabno mid ugu horeysa soo qaado waa 512. 512 numberada marka la isku dhufto keena ka raadi waxay ka timid 2 lagu dhufto 156. ogow 2 waa tiro mutaxan. sidoo kale 156 ma aha tiro mutaxan. raadi marka 156 sii furfurtay ka timid ayadana waxay ka timid 2 lagu dhufto 128. labadaas kale oo u horeyso hore ayaa u wadanay waa labadii ku dhufsaneed 156. labadan kalena waa mid ka iimaanaysa 156 ka iimaanaysa waay. marka ayadana saasoo kale hadda waxaa haysanaa laba tiro mutaxan oo laba ah inkastoo ay isku mid yihiin waa laakiin laba number inoogu taagan yihiin. 128 ka timid waxay ka timid 2 lagu dhuftay 64. 64 inta ka timid 2 lagu dhuftay 32. 32 inta ka timid 2 lagu dhuftay 16. 16 inta ka timid 2 lagu dhuftay 8. sidoo kale 8 inta ka timid 2 lagu dhuftay 4 inta ka timid 2 lagu dhuftay 2. marka meeqa labaad isku dhufsan waxa isku dhufsan 9 labaad isku dhufsan. dhammaan numberada marka waa hal number la dhihi karaa oo ah 2 laakiin uu soo noqday isku dhufsan 9 jeer isku dhufsan ama 9 mar waa tiro mutaxan. marka waa isiro tiro mutaxan. jibaar ahaan qor marka hadda waa tiro iska caadi ah. jibaar ahaan u qor. su-aashii aad markasta darteed su'aashii ahayd 512 marka loo qoro jibaarka ama taranta jibaar isro mutaxan marka loo qoro waxay noqonaysaa wax isku dhufsami oo 2 ah. laba waxay isku dhufsantay 9 jeer. 9 ka qal qaybinayna marka 4 waxa kala dhigaynaa 5. labada u horeysa waxa muujiye ooga dhigtaa 4. labada kalena waxa muujiye ooga dhigtaa 5. hadii la isku daro waxay noqonaysaa marka 9. marka labada u horeyso ama jibaarka u horeeya waa kaas bayskiisa ama salkiisa waa tiro mutaxan oo 2 ah. kan kalena jibaarkiisa ama jibaarka labaadna bayskiisa ama salkiisa waa 2. muujiyihiisana waa 5. muujiyihiisana waa 5. marka saas ayaa looga jawaabay. hadda waxay u qoran yihiin jibaar, waxay kale u qoran yihiin isro mutaxan, waxay kale u qoran yihiin jibaarka isku dhufsan yahay oo waxa aragtaa inay calaamadu ku dhufashada ay u dhaxayso. okay su'aasha kale hadaan ka jawaabno oo labaad waa 343. 343 ka timid waxay ka imaatay 7 lagu dhuftay 49. 7 waa tiro mutaxan.
tiro mutaxan waaye 49 laakiin tiro mutaxan ma aha 49 tiro mutaxan ka dhig 49 ka taki maata ayadana todobadii hadda ahaysan hor nooqaad 49 kan waxay ka timid todoba lagu dhuftay todoba ka imaatay marka waxa isku dhufsanaa ujeeda meeshan saddex todobaad oo todoba dhanna ama saddex ahaadana todoba dhan waa tiro mutaxan marka waxa isku dhufsan waa todoba su'aashii ahayd marka sidaa darteed su'aashii ahayd 343 jawaabteedu waxay noqonaysaa todoba lagu muujiyay labo oo lagu sii dhuftay todoba marka todoba waa isir tiro mutaxan waaye waana maxaa lahaay waana isku dhufasho ay ka dhaxayso labada todoba saa darteed waxaan dhahaynaa su'aashii 343 hadii loo qoro taranta jibaarada isir mutaxan waxay noqonaysaa todoba oo isku dhufsantay laba jeer oo lagu sii dhuftay todoba oo isku dhufsantay hal jeer marka waxay u qoran tahay hadda jibaar u qoran tahay oo isir mutaxan ah waxaana ka dhaxeeya laba jibaar oo jibaarku u hore waxa todoba lagu muujiyay labo jibaarka labaadna todoba lagu muujiyay hal labadaas jibaar waxa ka dhaxeeya marka ku dhufasho saas waxay ku noqonaysaa marka jawaabtii loo baahnaa kan kale ee saddexaad tadaa fiirina waa 729 asagana meelaha uu ka yimaaday sheeg wuxuu ka yimaaday 9 lagu dhuftay 81 9 tiro mutaxan ma aha 81 tiro mutaxan ma aha 9 ka dhig marka tiro mutaxan 9 inta ka imaatay waxay ka imaatay 3 lagu dhuftay 3 81 inta ka imaatay 9 lagu dhuftay 9 marka waxa haysanaa laba tiro mutaxan oo 3 ah iyo 9 oo ayagana ahayn tiro mutaxan marka 9 ayagana tiro mutaxan ka dhig waxay noqonaysaa labada 9 inta ka imaadeen 9 ka hore inta ka imaaday wuxuu ka imaaday 9 wuxuu ka imaaday saddex lagu dhuftay saddex lagu dhuftay saddex sagaalka kale haddana meesha ka imaaday sheeg wuxuu ka imaaday saddex lagu dhuftay saddex meeqa saddexaad isku dhufsan marka waxaa isku dhufsan lix saddexaad lixdii marka kala jibi waxay noqonaysaa saddex lagu muujiyay afar oo jibaarka koowaad ah iyo jibaarka labaad oo ah lagu dhuftay saddex lagu muujiyay labo lixdii kala qaybsan marka dhinacna waxaa muujiyo oo dhigna afar dhinacna waxaa muujiyo oo dhigna labo haddii muujiyaas dib isku daran waxay noqonaysaa muujiye lix noqonaysaa saas darteed marka su'aashana la weydiiyay oo ahayd 729 hadii loo qoro taranta jibaarada isra mutaxan waxay noqonaysaa saddex lagu muujiyay afar oo lagu sii dhuftay saddex lagu muujiyay labo su'aasha ku sii xigto oo afraad waxay ahayd 3125 meelaha ka imaatay sheeg marka waxay ka imaatay 5 lagu dhuftay 625 shantaas marka u horeyso waa tiro mutaxan maxaa yeelay shan waxay ka imaan kartaa oo kaliya hal lagu dhuftay 5 ama waxay ka imaan kartaa ama waxa u qaybsami kara 5 hal iyo 5 bis u qaybsami karo hal iyo nafsadeeda oo 5 ah ayaa u qaybsami kara kaas camal waxa la tiro mutaxan waay 625 inta ka imaatay ayadana waxay ka imaatay 125 lagu dhuftay 5 meesha meeqa ku haysanaa meeqa israaysana laba israaysana oo tiro mutaxan oo 5 ah 125 tan ayadana isir ka dhig oo waxaan dhahaynaa 125 inta ka imaatay 125 waxay ka timid 5 lagu dhuftay 25 5 lagu dhuftay 25 tan inta ka imaatay 5 lagu dhuftay 5 lagu dhuftay 5 marka meeqa sanada isku dhufsan 5 sanada isku dhufsan su'aasha saas ahayd marka waxay noqonaysaa 5 lagu muujiyay 2 lagu dhuftay 5 lagu muujiyay 3 jibaarka koowaad muujihiis waa 2 tan kana muujihiis waa 3 iyo 2 isku darna waa 5 waxay ka dhigantaa marka 5 in isku dhufsantay 5 jeerna isku dhufsantay sidoo kale wuxuu u qoran yahay isra mutaxan uu qoran yahay isla markaasna waxa ka dhaxaysa ku dhufasho waana jibaar jawaabta ugu dambaysa marka sidaas ayay noqonaysaa saas darteed maxaan leenahay marka numberkii ahaa 325 numberada ama hadii loo qoro taranta ama isku dhufashada isra mutaxan isku dhufashada ama taranta jibaarada isra mutaxan hadii loo qoro waxay noqonaysaa 5 lagu muujiyay 2 lagu soo dhuftay 5 lagu muujiyay 3 saas ay noqonaysaa ayadana su'aasha kale ee ku xigto ee u dambayso waa 80 waxa u qortaa isku dhufashada jibaarada isra mutaxan ama taranta jibaarada isra mutaxan 80 ka timid 80 waxay ka imaatay 5 lagu dhuftay 16 5 hadaa ku dhufato 16 waxay ku siinaysaa 80 okay waxa haysanaa marka hadda hal number oo tiro mutaxan ah oo 5 ah 16 ma aha tiro mutaxan maxaa yeelay number badan ay ka imaan kartaa marka la isku dhufto oo keeni kara 16 tiro mutaxan ka dhig 16 ay inta ka timaaday 2 lagu dhuftay 8 hadda marka meeqa tiro mutaxan haysanaa 2 5 iyo waxa haysanaa 2 8 ay inta ka timaaday 8 waxay ka timaaday 2 lagu dhuftay 4 meeqa tiro mutaxan marwayna 3 tiro mutaxan 5 iyo waxa haysanaa 2
iyo waxaa haysanaa labo. labadaas kalena in meesha ka imaatay sheeg. waxay ka timid labo lagu dhuftay labo. marka meeqa labaad isku dhufsan, afar labaad isku dhufsan iyo hal shanaad haysanaa. dhammaantood marka waa tiro mutaxan oo isri ah. hadda marka jibaar ahaan u qor. waxay noqonaysaa shanta waa hal goor waaye, hal jeer isku dhufsantay. labada iyada waxay isku dhufsantay afar jeer. su-aashay marka ahayd 80 u qor taranta jibaarada isra mutaxan. waxay noqonaysaa 5 lagu muujiyay hal oo lagu dhuftay 2 lagu muujiyay afar. 5 waa tiro mutaxan, 2na waa tiro mutaxan, isla markaasna waa jibaaro oo maxaa yeelay 5 muujiyaheed hal waaye, 2da muujiyaheedan waa afar waa jibaaro, waxaana ka dhaxaysa taran ama isku dhufasho. halkan ayaan kusoo gunaanadeena. ujeedadeena muuqaalkan wuxuu ahaa inaan leeliga koowaad ee cutubka labaad aan kaga jawaabno su-aashiisa saddexaad. su-aashiisa saddexaadna waxay ka koobneyd 5taas su-aalood oo hadda aan isla soo aragnay. waa mahadsantihiin haddii aad dhegaystay ama daawade nagu cusub tahay. guji like and subscribe. mahadsanid asxaabta nagu soo biirtayna ayada oo nagu soo biirto nagu cusub qaaliga ah iyagana waa u mahadnaqaynaa. soo dhawaada. halkan waa janaal ama kanaal waxbarasho oo waxbarasho kaliya lagu soo bandhigo. waa mahadsantihiin. soonqaad wanaagsan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you Allah, thank you for this day. Jumma Jumma Mubarak, Jumma Jumma Mubarak, Jumma Jumma Mubarak. It is Friday, this is the best day. Jumma Jumma Mubarak, Jumma Jumma Mubarak, Jumma Jumma Mubarak, Jumma Mubarak.